kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aanu ka qaadi doono siyaasiga ahna samafalaha Soomaaliyeed haatan ama sharax u taagan jagada madaxtinimada Puntland 2019 aadan ciise gadaale aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaa marka hore aan ugu soo dhaweysay gurigaaga oo aanu dabcan doonayna waraysi aan kaaga qabano aad baan kaaga mahadcelinaa aadan waxba ku noqomayno dabcan taariikhdaadii hore oo dadku way ka wada dheregsan yihiin haatan waxa tahay sharax u taagan Puntland in uu noqdo hogaamiye 2019 doorashada la filayo 8 January inay ka qabsanto gudaha Puntland waxa ku jirta halgan dheer waxaad u gashay mideynta musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada Puntland markaa timi waraysigii iyo warbixintii u dambeeyay aanu ka qaadnayna aad isku keenta waxaana tahay dabcan afayeenka 24 kaasi musharax oo aad kulmisay bal warbixin naga sii marka hore maxaa kugu dhaliyay sharxitaankaaga aad iyo aad baad u mahadsan tahay waana ku faraxsanahay inaad warkan iga qaadaan ama aad ila yeelataan maxaa igu dhaliyay in aan isu soo taago doorashada Puntland 2019 waxa igu dhaliyay waxyaabo fara badan laakiin ay ugu dooroon tahay intaanan hawshan isu soo taagin dhowrkii sano oo la soo dhaafay dalka ayaan ka shaqaynayay oo shaqooyin kala duwan oo fara badan oo ah yani samafalid dad kala duwan agoon dad indhala dad dhiban dadkii soo qaxay xeriyihii maxaan ku raahdaa IDP ama maxaan ku raahdaa internal maxaa la yiraahdaa dadkii soo kala dalka gudihiisa isaga gurguurayay ama ha noqoto dadkii haraadka iyo dhibaatooyinka abaartiisima ay dhibatay ha noqoto dad baahi awgeed iyo baqdin nololeed isu daldalay ha noqoto waxaas baan ku dhex jiray muddo dheer markaad dadkii ku dhex jirto xaqiiqada dadka iyo dalka ayaad ogaanaysaa waxaad ogaanaysaa yani duruufta haysata dadka danyarta ah waxaan filayaa inaad aragtay baadiye anoo xoolo ka shubaya geel biyo siinaya ari biyo siinaya dad la hadlaya dad fadhiga ka kici waayay istaajinaya gaajo awgeed marka mujtamaceennii baan la noolaa muddo dheer marka noloshaasi waxay ii kordhinaysay inaan ogaado sida dadkaas loo daryeelayo ama aan loo daryeelayn sida dadkaasi u baahan yihiin sida dadkaasi dawlad la'aan ama daciif dawladeed ay u haysato sida dalkaasi ay tahay eelna uma qodna cidina uma maqna waxyaabahaas baa runtii aad ii taabtay wadooyinka markaan dhisayay oo misalan wadada ay iyo isku xirto dangorayo wadada markaan dhiso dadka sida ay dawlad iyo dad u jecel yihiin waxaad arkaysaa meelo cidla ah oo 40 kilomitir magaalo noogu sokayso dad dhagaxan ya dhiganaya war maxaa dhagaxantan u dhiganaysaa mustaqbalka waxa soo socda iyo wadadan dhismi doonta baanu suuq ka raadinaynaa iyo nolol marka waxaad arkaysaa ummadii dawladnimo say u jecel yihiin iyo magaalo inay dhisaan say u jecel yihiin iyo in la hogaamin wanaagsan helaan say u jecel yihiin arrinta aad iyo aad bay ii taabatay anigu markaas aan shaqooyinka waday wadanka waxa ka socotay sharaxaad kala duwan oo federaalka ah oo aqalka sare ah oo dawladda federaalka parliamentarianka ah oo waxa ka socotay waxyaabo fara badan oo kala duwan midna waliga uguma tagin maskaxdeydana kuma jirin maxaa yeelay number 1 waxaan ka fikrayay gobolkan hadda aniga aan ka shaqeynaya dadkeeda wax number 1 u taabanaya first hand markaan taa ogaaday taas waxa ii soo muuqatay sida aan sheegay inay baahi aad u weyn dawladnimo iyo hoggaan wanaagsan u qabaan aysan haysan hadda anigu ma oranayo waxaan ninka kaliya oo arinta ku haboon waxaan rajaynayaa dad badan oo ku haboon inay soo sharxeen laakiin waxaan ka warramayaa aniga dhinacayga wixii igu aadan oo aan isleeyahay waxbaad ka qaban kartaa waxaan joogay dadkii oo dalkoodii la soo hujuumay oo magaalada Garowe 50 kilomitir loo yimid oo ay joogaan madaxdii oo dhan oo qofna u dhaqaaqin waana qofkii ugu horeeyay oo tagay meeshaas taariikhda gadaal ugu noqday qofkii ugu horeeyay oo tagay xataa ciidamadii madaxdeedii ayaan ugu horeeyay maxaan ugu horeeyay marka maxaa ku muuqanaysa dadkii iyo ciidankii iyo duruufta haysata oo qareemideeda 5 bilood oo gow ah baan ciidankaas taakulayntiisa raashinkiisa dharkiisa dawadiisa maskax yani geesnimo gelintooda aan ka shaqeynayno waxa soo dhan marka macluumaad baa kaaga soo baxaya waxa soo dhan kaaga imanaya oo ah dadkani waxay u baahan yihiin
dawlad saxa bay u baahan yihiin hogaamiye run bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dad ay madax ay ku soo hirtaan uma baahna madax ay ka cararaan uma baahna madax ay yiraahdaan meel daran Allah u dhigo uma baahna madax ay yiraahdaan iska dhaaf waqtigiisa ha iska dhamaystee dib kale hadda sii kororsan mayno iyo calool xanuun bay kugu beeraysaa markaad baqashid intaad dadka u tagtid ciidankii ama dadkii baahnaa ama shaqaalihii ay ku yiraahdaan intaasaan lacag qaadan oo maxaa dhacay wadankii lacag baa ka buuxdo maalin walba dekada boosaaso 200 oo kun oo dollarka Mareykanka baa ka soo baxa waa ka badan tahay dalkeena oo dhan waxaan tagay nimankii haystay meelaha ugu sarreeya dawladda oo leh 37 bilood shilin ma qaadan yani waxaasi hadda qofkii dhiig leh oo dalnimo ay ku jirto oo dalkiisa iyo dadkiisa jecel hada waa u dhaqanaya marka aniga waxa igu dhaliyay danqashada dadkayga dhibaatada haysata oo ay dawladnimo u qabaan oo ay dad wanaagsan u qabaan oo hogaamin wanaagsan u qabaan that was number one for my decision wixii igu xoog badnaa oo igu dhaliyay horta taasaa sabab u ahayd uma ahayn aniga inaan dalka meel fog inta ka soo aado baasiinta soo doortay inaan dhex joogay baahidoodana maqlay codkoodana isagoo oo dheer iyo isagoo gaaban baan dhageystay taas ayaa igu keentay waxaan raadiyay inaan dawladda joogto xataa wax ka saxo waxa ii muuqtay inay tahay waxaan wax badan laga sixi karin nasiib wanaag waliba iyadoo dawladdaasi jirta waxyaabaha dadka kaga duwana waxa ka mid ah dawladda sidaas oo dadku dhamay ka sheeganayaan si aanay intaasi looga kala daadan dadka difaaciyay baan ahaa oo yaan wax laga sheegin oo yaan la caayin oo yaan banaanka ceebteeda loo soo saarin waxaan ka baqayay intaasina intay sii kala daadato inaan meel ka sii hooseysa gaaro oo dadku isku dhex daataan marka waxaan aad isaga dhigayay inaan taa iyada ah xagaheeda ay ku taagan tahay si dadku ay jeclaayeen waqtigeeda ha dhabaysato yaysan ka dhicin wax sidaa darteed heli maysid waxa dadku ay dacaadeynayeen taariikhda intaa leeg anoo dacaad ku furay ma jirin ama anoo la dagaalamay ama anoo wax ka sheegay bal waxa dhici kartay waxyaabaha aan qabanayay dad badan inay moodayeen dawladda inay u keentay anigu aanu sameeyay waxaad arki doontaa khudbooyin la akhriyay oo wadada markaan xirayna madaxweyne ku-xigeenka iyo ra'iisul baarlamaanka laga waxa iska kaashaday wadadan dawladda iyo aadan gaadaale iyo shacabka hadaba dawladda shilin kuma leh haddaan ku sheegayo hal la weydiiyo $1 iska dhaaf 100 iska dhaaf 1,000 iska dhaaf milyan $1 kuma leh مع ذلك شرفت waxaan u siinay mar rabin dalka iyaga iyo dadka iyaga dawladda in iska hor yimaadaan dadka iyagu inay dawladdan caradaan mar rabin marka gacmo gel jira hoos baa loo dhaqaa taas baa igu keentay marka waxyaabahaas ugu muhiimsan waxay igu kalifay inaan u baratamo dawladnimada Puntland ee 2019 horta su'aasha aan ku weydiinay waxay tahay dad badan baa dhaliil u jeedinaya marka xagga iska dhigno horta qof aan dhaliil u soo jeedinin ma jira taas horta su'aala waxaan ku leeyahay bal maanta inta magaalada gashid waxa ka qaada afti waxa kugu adkaanaysa inay heshid qof yiraahdo waa dhaliil ma laha bal iska dhaaf dadku inay u badan yihiin iska dhaaf waxa kugu kalifaysa anigu waxaan qabaa hadda Cabdiwali u tagtay hadda weydiisid oo tirada ka waran wuxuu ku oranayaa faashil baan ahaa marka yaad kale ka doonaysa waxa ka mid ah hadalkiisii meel walba qoran idinku ba haystaan oo uu leeyahay dawlad 2019 haddaan Puntland qof iyo cod sii gaarsiin waayo dawladda Cabdiwali waa faashil isaga uu leeyahay marka aniga ma oba shacabka ila weydiiso ma ahaba isaga qiran bal qof kale iska dhacay taasi waa mid meelaha dadku ay aad iyo aad ugu gool daraysteen waxa la oran karaa waa almost dhinac walba waxyaabaha uu sheegayo markuu oranayo qof iyo cod waa ku gool daraystay markuu yiraahdo 4.5 waa joojinaya waa ku gool daraystay markuu yiraahdo inta dadka uu yimaado waxaan keenayaa musuqmaasuq inaan la dagaalamo oo daahfuraan iyo nadaafad iyo hufnaan iyo baan keenayaa waa ku gool daraystay markuu yiraahdo waxaan dhisayaa maxkamad dastuuriya iyo nidaam maanta waa ujeedaa ku gool daraystay markuu ku yiraahdo intuu dadka la hadlo markuu baratamay uu yiraahdo laas caana faataxa laguma qabsan saas uu ku yiraahdo aad dhageysatid tiro okay marka koobaad hadalkaasi waa gaf ilaahay diintiisa inaa ku xadgudubtid oo sheegtid ma ahaba ma arkaysa oo yani faataxa la'aan midna miyuu wax ku qabtay hadda miyuu wax ku qabtay midna kuma qaban marka way hadalka bal fiiri yani hadalada yani ka janka ah aan macnaha lahayn oo iska maran oo meel la cuskanayn oo iska tuura waxa kamid ah yani hatta shacabka insaltiga yani soo baabi'iyay dhageysa waxyaabii uu ka yiri Puntland aad bay u nasiib daran tahay waa naagaroobo qorxoon hadba geed alkuleysay guursanayo waxa ku hadlay ma waxa wax dawlad nama lagu doona it was right markii koobaad ba inaan fahamno qofka waxa ku hadlaya inay gartaan bay dadku ahay
ma garatay cabdi weli maxaad hadda ka yeeshay islaantii qorxoonayd oo garoobkayd adigu aad sheegtay adeer maxaa u kordhisay maxaad ku hagaajisay maxaad ku soo saartay marka yacni isagii aniga rekorka cabdiweli baa ina ku filan uma baahna dad kale qof dabada kaga soo duula iyo qof wuxuusan oran ka sheega ma u baahna isaga kaliya inuu u laabto maanta xaggee ku socdaa yani waxyaabaha ugu simbalsan oo ugu sahlan inta puntland la joogay waa madaxweynihii ugu horreeyey oo dowladdiisa hal mar la tuuray sheeg inta dowlad ina soo martay 20 sano ay maraysa dowlad ninka wasiiradiisa hal mar la tuuray waysan oo maxaa loo tuuray lacag la isku cuno la qaybsado lacagtii buu dhacay markaanu weydiinay baarlamaanka maxaa saa u yeesheen oo aan ugu garaabayn waxa ay sameeyeen waxay yiraahdeen anagu dooni mayn rashwa iyo edab darro dooni mayni waxaan aragnay lacagta ninka kaligiisa inuu cunayo marka waxaan isku ka rita qaybtiin dalkii maadaama lagu maamulay anagu ma rabin haddii lacagta dalka la gelinayo anagu taa dib nagu bahaysan laakiin waxaan aragnay dal nin kaliya cunayo markuu niri wax naga sii oo noo diiday waxaan isri bar marka kululeeye saasaan u yeelay markaasoo arrintii darsiga kaliya u qaatay kaasoo ahaa lacagtii markuu noo qaybiyey annana waxaan waa ku socnay waxaagay dabcan kuma ay saxsanayn laakiin haddii dhinaca kale laga fiiriyo hadda nin xoolaha cunaya inaad wax kala hartid wax iska logic oo la qaadan karo waay laakiin ma ahayn dariiqii saxda ah waxaa la rabay intay ridaan dowlad sax inay soo saaraan dadka xoolahooda u soo celiyaan sida saxda ay saas ahayd laakiin hadalka ay sheegayaan marka aragtid waad garan kartaa meesha hal nin baa xoolihii cunaya dekad buu soo saxiixay wuxuu yiri dekad baan keenay dowladaan siiyo caynka waxa isweydiin la ilaa maantadan la joogo dekadaas maxay ahayd habka lagu soo saxiixay percentiga TP wall u leeyahay waa imisa percentiga Puntland leedahay waa imisa percentiga dad kale leeyahay oo ama dawladda kale ay leeyihiin oo soo qoray waa imisa ilaa maanta lama oga ilaa deerta inuu fadhiin lama oga maantay wuxuu u baxay dawladda dadkii waa laga joojiyay dekadii qof dadkii wax soo keensan jiray oo dhan waa laga wada xiray qolada uu heshiiska la galay oo kaliya baa ku shaqaysata laba maalmood ka hor wuxuu aaday Nairobi isagoo raba inuu dadka indhasar caadiyo Nairobi muxuu aaday wuxuu rabaa leen halka inuu ka xiro wuxuu diiday halkan intuu ka baxo inuu Dubai aado oo dadku ku oriyaan markaas wuxuu rabaa inuu Dubai intuu tago oo Dubai ka duulo Nairobi oo Nairobi ka tuulo oo Dubai tago oo halkaas saddex geesoodka oo xoolaha ku raadsado wuxuu rabaa inuu yiraahdo dadkani waa xoolo oo waa iibsan yihiin lacag aan ku sii gata isiiya abdi wali aqligu ku hadlayo dhan waa inta ma hadalkii baan dhisayay wax isiiya wuxuu rabaa inuu yiraahdo dadkan أنا سوء قاعدين شن سنة معمولي حوله ويوي بسيهنا العكت أن تبسن لها السيا وعلى جهة اللي ورك هذا الشيء 8 مليون أما واحد لمده إنه عطسانية بل هذا قربت كاس أنتوا لاقيه فيه ساس الصوت هذا وضب كلا هذا عبد الولي دي يسيه هو مقالة هذا كتير تذكر مكشة كنيه وحواي وحربا إنه يرى هذا مقالة ينكا لقصوا بلا ببوساسو قردو جروه أنت هذا كورن إسوا صباح سي يوم المحشر إلا العكس سوما سوق هذا وحرادات كورن إنه يصبحانه أنتوا بارين تقدسي يرى إيس عبية وبنانك أصبحها وواحد يقول كلام جل أنا ما أنت قديدين هاي بلادي دي بي وري إمارات كره أنتوا توير هذا كهلا يستطيع كين السوق أو قفك بني آدم كلو وجه عليه هنا أنا هاي أو يعني أنا هي واحد أرجو لما قال سدوا مقالة ذلك ياخذ بيني خضر كين السوق شده خضر كاسي وكل بعقل كاس وهذا كوهر لاي وحول إلى أركه خلق بسيط ويجعل عليه يده بالجوب dad intuu saa u gaajaysiiyay rafaadka u geystay uu leeyahay maalintaas qof waliba qadadiisa balin uu helo uu leeyahay heeda isu soo baxa 400 kilomitir safnaada maalintaas qadadiini iyo biyacbaalkiina ana layga raba horta khidadu ku socdaa waa waxa ummaddu saa ku aqoonay waxa marka darsiga ka maqani waxa weeye ummadda Soomaaliyeed Cabdi Wali way ka aqli badan tahay ummadda Soomaaliyeed Cabdi Wali way ka khibrad badan tahay ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha sii dhacaya way ka xogogaalsan tahay dalkeeda iyo dadkeedana iyadaale way istaqaana Cabdi Wali darsiga ku qaato dad isaga ka hogaamin fiicna oo habeenkii ugu dambeeyay doorashada federaalka dhowr iyo 10 milyan oo dollar bixiyay way subaxii way ku khasaareen iyaga lama dooran programkaas oo dhan isku darkiisa dawladahaas iyo dadkaas waxa gaaray lacag dhowr iyo 40 milyan ay ku kharash gareeyeen kumana soo bixin dadkii lacagta ay siiyeen oo xubnaha ahaa markay runtii qaateen waxa jirta qaacida wadanka laga yaqaano waliba Puntland baa laga soo saaray asalkeeda lacagi waa cunid mabda'ana waa meeshiisa la yiraahdo ana waxa oranayaa lacagta hadda qaadaysaan idinku ha cuninina dalka lagu celiyo dalka iskale rishwa ha u qaadanin dalka iskale inta inoo ka qaadaan dalkeena ha lagu dhiso iyadoo guudano ha lagu celiyo ka safartay dawladda
baan qabaa anigu inta inoo ka soo ururisaan waa xoolaheennii inaan si kale u helayne inta inoo ka soo qaadaan aynu ku ridanno khasnadii dawladda oo siino ciidankeenna oo siino shaqaaleheenna oo siino agoonteenna oo siino dadka beeralayda ah oo siino xanaanada xoolaha iyo dadka xoolaha dawadu u baahan yihiin daaqa iyo ceelal in loogu qodo u baahan halka aan la aadno meesha aynu wax kaga qabanno isagana sidii raggii hore loo galay ha loo galo oo xabar ka dhacday subaxa dambe isagoo aan lacagna u harin dawladnimada helin ugu yaraan intaas hayna kaga tago أنا ورد ذلك تاسان ليه موقف كيسنا وإسكعدي هاي ديني لقى إيجابه واحد دقي ستين برنامج كحفلة هراء قبتي وانيري بدحوينه وجوب بين كبدنا وإنت أنا صامر بنت أنا صامر إنتاس أو واحد يتمدد يجمع خانتك عي هذا الكاس إذا كان هذا كم بدم حيرة نقول كيف هيسان كيف هو أجي marka ana wax duwar uma haysana shakhsiyan min walaalkeena weeye min muwaadina weeye min reer Puntland weeye nina shakhsiyan aanan u nabcayn weeye maxay dadka iyagi weeye laakiin waxaan nacabnahay maamulka uu qalday iyo nidaamkii Puntland oo indhaha ka riday taas weeye waxaan nacsanahay taas weeye waxaan hadda ka sheekaynayna marka taa maxaan ku bedelaynaa weeye anagu haduu dalkii isagu saa u galay waxaan rabnaa opposite ka barnaamijka inaan sameeyno cagsigeeda dhinaca ka soo horjeedkeeda dhinacu ka taagan yahay mooyaan dhinaca kale inaan iska taagno oo amnigu ka mid yahay oo dhaqaaluhu ka mid yahay oo ummadda leadershipkeeda iyo hogaamin wanaagsan ay ka mid tahay oo musuqmaasuq laga dagaalan ay ka mid tahay dhinaca wanaagsan ummadda inaan wax uga keeno kalsoonida la tashada horumarinta dalkeeda soo celinta waxaasna amaaninta iyo dadka nabadgelyada ka shaqaynteeda inaan taas soo celino maan rabaa marka waxyaabaha annaga waxa iman doonta aan recordka iyo taariikhda u leenahay markaan hadalka leenahay waa waxaan record iyo taariikh leenahay ee ma aha waxaan iska leenahay ma arkaysaa meesha ku siimood oo dawladnimada la igu doorto ma aha waxaan ka hadlaynaa waa facts and figures kii la iga weydiiyana daliil baan u hayaa waa ka baxay wuxuu ku dhawaaqaynuu yahay musharax mar kale madaxweynaha Puntland haddii uu ku guuleysto Puntland waxay wajihi kartaa Puntland waxay wajahaysaa waxay soo martay 5 sano oo ay hoos u dhacaysay dhaqaalaha hoos uga dhacday meesha maanta la joogo waad garanaysaa dollarku wuxuu waraayay 2 milyan maalinta maanta waa ajis 4 milyan hada u fiirso yaani dhinaca kaliya marka ka fiirisid inta ay hoos u dhacday iyo dhibaatada iyo xarunka ku dhacay ka eeg dalkii uu yiri faataxa lagu ma qabsan 50 kilomitir baa maanta loo jiraa bal dal inuu xoreeyo iska dhaafay meeshii ay ugu yimid looguma iman isaga maanta isagoo jooga war inteeni baan idin nabadgeliyo wax siyaada ma qaban xataa ugu oran maayo maanta garowe ma qanina la socotaan jabhada qurbaha dhagax barkii iyo ururada markay yimaadeen waxay yiraahdeen garowe waa goob dagaal la isku aamini maayo maanta amaanadii baa maxaa yeelay madfac beesha ka soo duula magaalada soo gaara haye taas ka dhacday aan ka eegno bas cirbaran waad u jeedaa dawladnimadii iyo amaankii waad u jeedaa waxa ka dhacay ballanqaadka qof iyo cod waa u jeedaa waxa ka dhacay niyuusar wuxuu idinku yiri intaasoo goor ma soo sharxaysaa baad nafta ka jirteen ma qal inaad si ogeydeen ninkan inuu sidaas uu dabal wajiila u yahay markaas soo sharxi maayo maanta meesha uu marayo inuu marashaxiyo waa u jeedna marka intaa oo wada been ah intaa oo wada garab ka baxa intaa oo dadkiisii duleyn ah أنا واحد قبل هرت بنتلان مقادي كرتا أنت أي كبرن وان إنشي والسيارة مقادي كرتا مقادي كرو السجوا كل سوق نقطة واحد ويا بنتلان ولا واي ويا وحنا كي إن article أي لقى قري وقليو مريكاني أي كقري ده نيروبي لقى سو ساري ولا ليه هاي بنتلان عبد الولي كده مين مسؤول بابي خطبة واساس إذا عليه نتيجة هذا كسرتها dad inta isoo taageen markii loo diiday xubnahoodii dadka ila soo baxeen waa ka go'ayna Puntland taagay dadka dantaaba keenaysa inay go'aan mid waa meel iska aado marka horta macnaheeda hadalkeeda kooban waxa weey dagaalada maanta lagu hayo waad garanaysaa amnigii boosas waad garanaysaa magaalada xawl mariidka nolosheena u ah oo dhaqaalaheena u ah oo wax soo saarkeena u ah wax ka degaan waxna laga dhoofiyo ummadda oo dhan magaalada ugu weyn oo majority lagu nool yahay aeroboortka ugu weyn ku yaalo dekada ugu muhiimsan inuu ku taalo dadkeeni oo dhan meeshii asalka u ahayda maanta waxay geto meel ilaahu laga guuray inay u aragto bay dadku eegyihiin waxa maanta cashuurta la siiyaa dad aan ummado kale oo dalka la dagaalamaya ba cashuurta xoolaha ugu badan iyaga la siiyaa oo ay ku kalsoon yihiin qofkii hadal soo celiyo oo yiraahdo idin siin maayana dil baa u qoran isla markiiba cid difaacaysa malaha marka maxaad filaysaa
dadku waxay raacayaan waxaasay kala raacayaan nin waliba hadda cabdadiisa ula cararaya nafta ay bixi bay noqonaysaa marka macnaheedu waxa weeye horta anigu marnaba ku riyoon maayo cabdiweli inuu soo noqdo runtii kaliya mar walba waxaan leeyahay ilaahu oran maayo sidii dadkiisii aad bar oran jiray ilaahu kan wax ka khayr daran ma jiraan ilaahu dhan dhaafi sidoo oran maayo waxaan leeyahay ilaahu wax isaga ka wanaagsan nagu bedel waxaan rajaynayaa anigu inaan ka wanaagsanahay ilaahu ugu bedel horta saasaan leeyahay laakiin anigu malihi mar walba cabdiweli kaliya allah bedelo malihi maxaa yeelay ilaahay isaga adoomihiisa kale ugu waxa iman doona waxaan leenahay ummaddu dooran mayso waan kalsooni weyn baa ku qabaa laakiin ilaahu wax ka wanaagsan oo ummadda uga khayroon oo uga hogaamin wanaagsan oo uga kalgacayl badan oo ma arkaysa uga xorayn badan oo uga dhimrin badan ilaahu ugu bedel taasaan leeyahay laakiin hadduu soo noqdo waa jabkeena waa Puntland oo taariikhdeeda la khatimay way adaynu ka soo noqono midda arrinta cabdiweli ka aadan ahaan Puntland waxay ka kooban tahay 9 gobol gobolo badan waxay ka maqan yihiin gacanta Puntland haddii aad ku guuleysatid inaad Puntland hogaamiye noqoto goboladaas maxaa ka qorshaysan social asal muhiim weeye waxaan rajaynayaa qof kasta oo maanta murashax ahi inuu arintaas ay aad ugu weyntahay diiradda u saarayo ama dhabha ka hadto iyay ka ahaanin ama ha ku guuleysto biyadu ku guuleysan qof waliba arintaa waa dooraya anigu kaliya maxaa iga qorshaysan waxa ka muhiimsan taariikhda aan ka leeyahay arinta iyada hortaan xasuusinaya si aan u cadeeyo qorshaha aan ka leeyahay inuu yahay mid runa oo aan jees ahayn oo aan sheeko ahayn oo maqashi madadaali ahayn mid runa baa ka mid waxa ka mid ah 2008 markii ay dhacday oo laascaano iyo geyiga Puntland qaybo muhiim oo ka mid ah ay gacanta ka baxeen anigu waxaan joogay Canada meeshaasaan ka soo gurmaday halka anoo jooga zuugii ugu horeeyay ninkii iibiyay baan ahaa dalka iman dalka in lagu difaaco qorigii ugu tiira dheera qorigii ka mid ah waqtigaasaan iibiyay gacanta dawladdu maanta ku jira in dalka lagu difaaco waan imid waxaan ku campaign gareynayay campaignkaygu wuxuu ahaa number 1 dalka maqan iyo dadka maqan inaan soo celiyo number 1 bay ahayd waa 10 sano ka hor 2018 soo maanta ma joogno 2008 bay ahayd 10 sano ka soo wareegay maalinta waxa number 1 ee ah soo celinta dalka naga maqan hadalkaasi maantana number 1 bay ii tahay ma lahayaa qof 10 sano leenkii uu ku taagna aan ka leexan waxa ugu tagay number 1 ay tahay waxaan ka sheekiyay waaga waxyaabo fara badan oo dadka ay aad iyo aad يعني ولهي كأن موقف كاس ليش وده تاجنا واحد اللي يسوي ويدي واجا سالي ويدي سيدك السعودية نيسا واحد نمبر 1 واحد السعودية أنا قوم بدأ الصوماليات واحد جعلها نبض إيه وده جيرك إيه ولا التني ماذا يدرسونا جينا جعلها واحد السعودية نبض نمبر 1 واحد السعودية نبض نمبر 2 واحد السعودية نبض نمبر 3 عاد بنرجع على هيدنا عائن دينا أول تدك الصوماليات إصاف كرتان isfahmaan ma arkaysa walaalihiin aan dhibaato qof noqof u garab dhiibin qof noqof madax u taagin dadku inay fahmaan weeye 30 sano dagaaladii dhacayay oo qolaba maalin madaxa ay taagaysay qola ka macaashtay male Soomaalidu waxay yiraahdaan dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waa la arkay xaqiiqa loo arkay marka dadku inay aqliyeystaan 30 sano kadib iyadoo oo dawlad kale oo federaal wax qaban karta aysan jirin ee dadkii noloshoodii gobol isu qaybiyeen oo qolo walba dhinacooda difaacayso qolo inay qolo ku disho lama ogola aqliyana ma ogola taariikhda aan u leeyahay ma ogola haddaanu Soomaalina waxaan isugu diilaba jira walaalaanuna arinta marka in laga aqlisado weeyo aan la yeelin hadday wax naga dhaxeeyaan oo waxna dhex maraan waxa in lagu xalliyo walaaltinimo miiska wada hadalada labada ishaya ay heshiiyaan hadday iyagu heshiin waayaan walaalahooda kale Soomaalida iyaguna inay heshiisiyaan oo soo gurmadaan dhex maro nabad in lagu xalliyaa jecla haddii nabadaas laga santaago oo isuuroobi weydo oo waliba dadka wax ku soo duulay ay arintaas nabadu u cunabi weydo waxay helayaan wax cunama oo dalka laga soo celiyo taariikh baan ka hadda ka hor ka irin oo la yiraahdo nin aan ku halqabsaday ahaan jiray prime ministerka Canada waa hore 30 sano ka hor hadaladii uu jeediyay dalkiisa u kala go'i lahaa mar Ingiriis iyo Faransiis labada qaybood baa waxa la yiri wuxuu yiri dalku kala go'i maayo waa isku soo celinaya sidee baa la yiri noo sheeg sidee watch me what should I do fiirsada bal waxaan sameeyo habeenkii dad dalkii oo bando ka dhigay ciidan military galiyay wadankii maalinta uu isku soo celiyay maanta hal dal buu wadayay marka waxaan leeyahay fiirsada waxaan sameyn doono markaas haddaan nabad wax ku waayo
waxaa iga go'an xuduudii dalka inaan soo celiyo dal kale oo iyo dadkii kale oo walaalahayana ku xadgudbi maayo xumaan uma hayo xasadnimo uma hayo dal kale inaan qabsanno uma hayo Soomaaliya waa hal qoys Soomaaliya waa hal dal laakiin waxaan cadaaladdu ay keenaysaa reer walba gurigiisa inuu ku nabad galo oo uu nabad iyo walaal ku ahaado waxaana weliba ogahay dadka hadda la leeyahay dhinaca ka xiga oo la leeyahay waa soo duuleen dadkaasi ma soo duulin xukun maanta jira oo wareersan oo isla waxa wax ku helbaa waxa la yimid ummadda labada ummadood walaalo weeye waxaan ogahay annagu dagaalkan ku hayna ka badan inay ku hayaan oo leeyihiin ka soo noqo dadka dalkooda iyo dulmin ay leeyihiin isku dhinac baan wada mari doonaa waxaan dhinac wada marin doonaa Cabdi Wali iyo kan xagga ka jira iyo taas waa mid waxa kale oo tusaale iyo daliil kugu filan sanadkan bilowgiisii markii ninka xukunka dhinaca ka haya uu ku soo duulay dalkeena oo ay halka yimaadeen tukaraq ay yimaadeen halkan soo dhaafeen xuduudda iyo 50 kiiloomitir ama 60 iyo 50 u dhaxaysa inoo yimaadeen qofkii ugu horeeyay tagay waa aniga bal hal keena ciidanka oo dhan bal iska dhaaf madaxweynihii waa joogo madaxweyne ku xigeen waa joogo ra'iisul baarlamaan waa joogo baarlamaankii oo dhan waa joogo bal xataa farmaajo waa joogo ciidanka madaxdii oo dhan waa joogo qofkii ugu horeeyay taariikhiyan tagay maalintii soo duuleen maalinkii ku xigay tagay oo xoolihiisa geeyay waa aniga tijaar ma tagin culamaa u diin ma tagin siyaasiyiin ma tagin ciidankii madaxdii ciidanka ma tagin dad badan oo maanta ugu sharaxan ma tagin oo magaalada inala joogay Garowe haddaba murashaxnimo uma tagin xabad baa igu dhici kartay ana meesha la igu dili karay risk taker waxa yiraahdaan way luqadda Ingiriisiga risk taker waxa qofka khudurada qaata dhimashadu waa go'an tahay waqti baa inta kugu tala galay laakiin dadkaaga iyo dalkaaga ciidanka yaro meesha fadhiya inaan geesinimo geliyo oo raashinka koobaad u geeyo oo iyaga iraada anaga idin garab taagan inta meesha idin ku soo gaarayo ku sima ninkii koobaad oo sameeyay waa aniga ugama soo tagine 5 bilood baan halka fadhiyay oo hawlihii oo dhan u joojiyay oo subax walba salaada marka la tukado subaxii guddiga aanu sameeyno taakulaynta ilaa iyo habeenkii aanu ka dhaxaynay meesha inaanu tagno iyo xoolo inaanu keenno taariikhdu waa ogtahay 2,000 oo neef oo xoolo baan gobolka Nugaal iyo xuduudiisa ka aruuray 300 oo rati baan u qalay waan u soo iibinay meel walba isaga keenay rekorkaasi muxuu yahay marka bal hal isweydiyo taariikhdaas macnaheedu waa maxay taariikhdaas macnaheedu waa maxay min dalkiisa iyo dadkiisa u dagaalamayo leh Cabdi Wali inta la fariistay baan wax madaxweyne dalka anaga xoreynayna magaca qaado iyo sharafta ilaahay baan kugu dhaariyay magaca qaado dad badan magaca kuma ogol anaga ku ogol maxaa yeelay dalkayaga iyo dadkayaga iyo diinteedu inay nabad gashaan rabnaa mar rabo dadkayga inay halka gabdhihii ooyayaan oo dadkii guryahoodii laga soo kiciyay oo ay qarax ku jiraan oo qaar gala maxaan ku iraahdaa Ethiopia iyo qaar Garowe taga qaar Boosaaso taga yani wana ma qabato dadkayaga waxa ma qabato karaamada dadkayaga waxa ku ma aha dadkayga inay ka ooyayaan meel kala duwan oo ay maantay iyaga oo wax ku kalifay jirin oo cadow dibadda kaga soo duulay jirin dadkoodii qaar ka mid intay adoonsadaan ay meel istaagaan waayaan oo darbiyada jiifaan adeer waxaasina ma qabato galbaan ku dagaalka anaga difaacin anaga dalka xoreynayna magac iyo sharafta kaliya ka qaado madaxweyne inaad tahay oo saxiido kaliya muuji ma yeelay mise ma yeelin maanta dadkay u taala marka taas saasan ka yeelaya rekorkaygaana tusaya waxaana iga go'an oo mar walba ku celcelinaya dawladda anigu aan madax ka noqdaa waxyaabaha wajiga kaga qoran ugu horeeyo waxa weeye dalka xuduudeedii loo dhisay maalintii 1998 meeshii loo xariiqay inay ku soo noqoto dad kale iyo dal kale oo walaalahayana dulmimayno waa dhamaatay aad wad maasan tahay waxaan u nimaanaynaa deegaanada Soolsanaag yahay وهذا كان لسه dhulka gacanta ugu jira badankiisa Soomaaliland dadka deegaanadaasi waxa laga yaabaa qaar kood inay doonayaan inay yeeshaan maamul madax banaan waxa laga dhisay maamulkii SSC waxa laga dhisay maamulkii Khaatumo madaxweynihii Cali Khaliif Kaleer hadda wuxuu ku sugan yahay Soomaaliland maxaad u aragtaa iyaga laftirkooda haday doonayaan inay noqdaan dawlad maamul goboleed isku madax banaan waa su'aal aad u wanaagsan waxaan ku leeyahay horta markii koobaad Puntland xoog laguma dhisin waxa lagu dhisay wada tashi dadku ay wada tashadaan see wax u dhisanaa see isla qabanaa dadka maanta aad sheegayso oo Sool iyo Cayn iyo Sanaag iyo qaybaha kale ee Puntland laga soo bilaabo Galdogob Gaalkacyo Boosaaso Xaafuun maxaan ku iraahdaa Laas Qoray meesha rabta ka tilmaanta Garowe talaa la isugu yimi
sinjiraac bay ahayd wada deegaan bay ahayd dal iyo isku dan bay ahayd tal baa la isugu yiri waa la wada tashaday dawlad ay wada leeyihiin oo Puntland ay ku magacaabeen bay dhisteen waxaan ku sheegayaa gadaal taariikhda ugu noqo ismadii ugu badnaa dalka ay ka wada jireen oo aan qof u ka harin hal qof uusan ka leexan waxay ahayd ismada Sool iyo Sanaag haddaba waxa ay doonayeen waa waxaas dadkii waxa ay iyagu la yimaadeen taas weey ma cid baa ku qasabtay ma dawlad ku soo degay maya bunti Somaliland waa samaysnayd waagaas way ku beeri kareen cid u diidan miyaa jirtay maya cid xoog ka soo celisay miyaa jirtay maya mid dawladii jirtay oo Somaliland lagu magacaabayay bay ku beeri kareen mid bay iyagu iskood u dhisteen Puntland lagu magacaabo ay qayb ka yihiin oo ileeyihiin maanta baarlamaanka ugu badan oo ileeyihiin dawladaha meesha ugu sareeya wax ka badan konton officer xafiis hayay ku leeyihiin dalkan meel ay ku leeyihiin nuskeed xataa meel ay ku leeyihiin ma jirto iska dhaafay soo wax garatay ma waxa ay sheegayso la samaystay kuma laha ay samaysteen inta in la eg oo intay Puntland ku leeyihiin nuskeed kama aha Somaliland iska dhaaf warkeeda soo inta ma aha taa marka waxa dhacday inaynu waqti iskaga bixino ma aha nin intuu soo cararay xogaa dad intuu meel isugu geystay yirin antariyo tan isugu geynay oo isagu boos kaga raadsanaya Somaliland ama meel uu dago guri say boos aan ku daga iga siiyay هذا واحد سيد دولة دعمية آوي ودتك أشياء جيسها دتك هذا مقعودة حاجات دقيه هرجيسة قولي أن كدقو دتك يجيبان صور لما ينا يا واحد لنا أيضا هاي الدوران وقدام بينا وحسي وزير إسي أقاسمة إسي هذا حتى صحافة دينا كوما حبون واحد إنا تلمان محيي واحد لقى قوري دتك أتكش بدنا ويود أكته يجي ما أنت حد كره نين ما جوجان ما أنت حجيب جوجان ما أنت waxaas arinta wax ka soo qaad arinta kaliya wax ka soo qaad kale waxa weeye dalkii markii la xoreeyay oo la soo celiyo hadii hadalkaasi ba jiraba oo ma jira maanta maxay la ummadii oo dhan ba shalayna saa samaysay maanta u taagan waa ku ismadeedii guriga ismadii reer Soomaaliland guriga igu xigay maxaan leeyahay Sool iyo Sanaag guriga igu xigay degan yihiin waxay u tagi waayeen meelahaas hadda sheegayso halkaan ay joogan waxay kala dooranayaan yaa xoreynaya dalka iyagii noo soo celinaya bas beesha u fadhiyaan وما فديان ورعد بانو رمنا كليغا iyo dawlad aanu qabsanayaan ugu taageeraya uma fadhiyaan waxay u fadhiyaan yaa dalka iyagii noo soo celiya taasaan waxaan leeyahay anaga soo celinayna ana soo celinaya waxaan se ku daraya maalinta dalkaasi soo noqdo oo dadkaasi ay xor noqdaan dal qof la haysto lama weydiiyo afti adag cali dalkaasi markuu soo noqdo oo dadku soo noqdo hadii Somali Puntland intay fariisato referendum waxa la yiraahdo aftigood ay samaysato oo la yiraahdo warqaynta dawlad cusub oo kale ma loo sameynaya hadii dadkii u taala eeb ma aha taas umada ka wada hadlaysa iyadoo xor ah oo salmugii u fadhiya oo dhinacyadooda aan iska fiirinaya ku fiirinaya hadalka tirada kugu soo boodaya aan lahayn ay xor yihiin maalinta waa u ogol laakiin maanta waa la haystay waa in dalkii iyo dadkii la soo celiyo wali waxaan ugu jeednaa dabcan waraysigii aanu la yeelanay aadan ciise gaadaale oo ah musharax u taagan jagada madaxtinimada Puntland ahna samafala Soomaaliyeed waxaad ka daawanaysaan STN TV xaruntiisa magaalada Garowe waxaan hadda ku suganahay hoyga magaalada Garowe uu ka degan yahay aadan ciise gaadaale aynu nimaadno arinta Muqdisho waxaan ognahay xiriirka Puntland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ka dhaxay maanta meeshu marayo waxaad ogtahay hadii la qabanayo shirar lagu taageerayo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo kale inay joojisay maamulka dadka hooy dadku wax isweydiinayaan aadan gaadaale xiriir inta la eg buu leeyahay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa la ogaa inaad hore ugu hambalyeysay madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya markuu xilka uu qabtay marka bal xiriir inta la eg ba ka dhaxay bay shacabku isweydiinayaan dawladdu jawaab fiican baan u hayaa waxa weeye horta dawladda federaalka Puntland ma diidana dawladda federaalka Puntland baa hooyo u ah waa taariikh qoran Garowe 1 Garowe 2 tii ka horeysay haddaan Puntland jirin dawlad federaal inoo ma timaadeen horta asalkeedu waa kaas waa kow yaa Puntland Cabdi Wali baa diidan adeer gacali warku inuu cadaado DP Wall baa diidan adeer oo Cabdi Wali wakiil u yahay inaan fahmno iyo cid ka soo horjeeda taasi waa qodobka labaad waxa weeye dawladda federaalka aniga waxa igala dhaxeeya xiriirka dadka Soomaaliyeed oo dhan oo reer Puntland kala dhaxeeya
oo ah annagu dawladda iyadana inaanu leenahay dawladda sarana inaanu leenahay xiriir wada shaqayni inuu naga dhaxeeyo Soomaaliya inaan wada difaacno xuquuqda annagu aanu leenahay inaanu helo xuquuqdooda inay helaan meelihii loo asteeyay inay joogaan meelaha loo asteeyay inaanu joogno laba gacmood oo isdhaafaya galadii ka dhalata walaalnimo wada shaqayn Soomaalinimo midnimo in lagu wada shaqeeyo baan anagu ogolnahay nin isagu kiish gaar ah wato aniga hadii kiishkayga la buuxiyana waa wadanka dhan adaale hadii la ii diidana wadanka dhan ka soo horjeeda adeer wadankan wax nin kaliya jeebkii gali kara ka balaaran haday suuroobi lahaydna way gashan lahaayeen uma suuroobayso dawladda federaalka waa kii madaxweynuhu halka yimid waa sheeg waa wadanka intii ugu dheerayd kilometrika ugu dheeraa uu ka socday laga bilaabo xuduuda Garowe ilaa Boosaaso 400 oo kilomitir buu ku socday ammaan dalka Soomaaliya waa meesha koobaad ee dhul inta leeg ammaan lagu mari karo Puntland waa meesha kaliya aan oran karo farmaajo markuu nabad ugu gamay waxa ra'iisul wasaaraha yimid khayr yimid waa meesha kaliya oo uu sidoo u yimid iyadoo waliba waxa hadda sheegayso ka soo horjeedka jiro cagsigeeda ay muujiyeen waa la soconna dawladda waxaan ogolayn inaanu Puntland inta iibino dawladda federaalka iibino iyagu say rabaan ka yeelan taas wax jira ma aha Puntland kama wada dhici kartaba geography ahaan uma samaysna taariikh ahaan uma samaysna dad ahaan uma samaysna taas wax jiri kara ma ahaba oo hadda qofkii wararka sheegaya isaga jira waxa sayaab Cabdi Wali aynu weydiinayna adeerow ma waxa Soomaaliya cadow ku ah dawladda Soomaaliya dadka Soomaalida federaalka ah oo aan wax ka badan 40 xildhibaan ku leenahay halkaas mise waxa cadow ku ah kuwa dalkeena iyo dadkeena ibiyo hadda maanta aad joogtid oo dalkeena raba inay qabsadaan horta qolada cadow noo ah inaad tiraahdo dawladihii banaanka adigu lacagta ka cunaysana waa xabiibkeen oo iyagaana leh dawladii Soomaaliya dadkii Soomaalida iyo ilma adeertii iyo walaalihii iyo xididkii iyo isku reerkiina aad tiraahdo waa cadow iska soo horjeeda ma Cabdi Wali xageegaysay dhiigii reer Puntland ee ku daatay inay dawlad Soomaaliyeed dhisaan xageegaysay ma waxa iska hayd sheekadaada adigu inaad nacabtay awgeed Cabdi Wali ninka koobaad oo prime minister ka noqday oo xoolahoodii soo cunayso adiga maaha Soomaalidu waxay ciirtaada dhamacaydaada yaqaan adeer waa mushkil ku haysatee annaga mushkilada ma haysato adiga dib ku haysta annaga hana gelin anagu dawladda federaalka waligay kama qaban biyitooni kama qaban mana ugumana caraysni ugumana baretamin dibina igama hayso laakiin dalkaygaan dhisaya kaana waa wada dhisanayna warkeena waa dhanyahay xarunta gobolka bari waa magaaladii oo ahayd lafdhabarka Puntland marka la eego waa xarunta ganacsiga Puntland waa meesha u badan dabcan dhaqaalaha Puntland ka soo xaroodo waxaan ognahay in ay burbursan tahay wadada isku xirta magaalada Boosaaso oo xarunta ganacsiga Puntland iyo ilaa magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaanba Soomaaliya waxa sidoo kale dabcan faraha ka baxay amniga magaalada Boosaaso saan la socono arrimahaasi see kula muuqdaan warkeeda kooban arrimahaasi waxa weeye aniga maalinta koobaad waan xukunka Puntland gacantayda soo galo kow meesha xawlmariidka ummadda oo asaad maqlayseen waa Boosaaso amnigeeda maalinta koobaad in la sugo maalinta koobaad ma aha maalinta labaad maalinta amnigeeda in la sugo oo dadku nabad dekada iyo aeroboorka iyo wadada iyo baadiyaha iyo beledka dadku inuu nabad isku maro oo argagaxa ay ku jiraan iyo guriyaha la soo xiranayo 9 saac galabnimo waan la socon karin oo masaajidda laga joogsatay arinta inaan degdeg wax uga qabano number 1 bay ita halkaas in wax laga qabto amniga number 1 mar badan baan ku soo celiyay qayb kamida weey qaybta ugu muhiimsan weey inaan halka wax ka qabto arinta wadooyinka iyo jidadka iyo la isu maro waxaan ila tahay inaan ku leeyahay arin taariikhi ah kaliya 120 kilomitir oo dad jidka ugu xuno ugu dhibka badana oo dangariyo ay isku xiray isu taagay maana dharka u xirtay isagoo kaligiisa oo u bareeray oo 130 dhameystiray waxa yiraahdaa cut and fill iyo waxa la yiraahdaa survey iyo soil analysis iyo intaas oo barnaamijka ka sameeyay u taagnaa dhididka iyo waxaad ka aragteen iyo wax taariikhda aad aragteen ku soo baxday uga soo tagay xataa familigiisa noloshiisa khaaska ah fine yani 100% dedication commitment ku talagal ninka ka yeelay baan waxa Soomaaliya ama Puntland nuxka number 1 ah wadada isku xirta Gaalkacyo ilaa Boosaaso jid markay noqoto waa meesha ugu horeyso aan dhisayno iyadana oo la dhisayo ay kamid tahay sidoo kale jidka isku xira ilaa halkan ilaa iyo Laascaano ilaa iyo xuduuda maxaan ku iraahdaa Bayagoori labi maxaan ku iraahdaa Ishag labi gaatamo intii ay xuduud la leedahay
wadooyinka waxyaabaha ugu muhiimsan weeye galdogob ilaa gaalkacyo in la isku xiro garacad ilaa jidka highway in la isku xiro boocambe ilaa iyo jidkan highwayga in halkan la isku soo xiro inaan ka fikirno maxaan ku iraahdaa sida looga keenayo maxaan ku iraahdaa buuhoodle iyo wadada laamiga in la isku xiro laascaano yani dalka in la isku xiro waa se kala duwan yihiin oo waxaa noo diyaarsan يعني stages ama priorities ay kala leeyihiin laakiin wadooyinku waa waxyaabo ugu muhiimsan oo dadka noloshooda ku xiran tahay isu socodka iyo ammaanka iyo dhaqaalaha iyo ummadda jiritaankeeda uu ku xiran yahay waxyaabaha noogu muhiimsan bay ka mid tahay oo aan maskaxda ku hayo sidaas baana yeeli doonaa haddii alla yiraahdo waadna arki doontaan maalinta waxa ku farxdaan baad arki doontaan haddii alla yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsan tahay aadan ciise gaadaale ayuu ahaa oo ah dabcan musharax u taagan jagada madaxtinimada Puntland ee doorashada 2019 sidoo kalena ah samafalo Soomaaliyeed oo dadweynuhu ay ku soo xasuustaan gabagabada wareysigan ay soo gaarnay bal waxyaabaha aad bulshada dabcan ka daawanaysaa warbaahinta caalamiga STN aad u marinayso waxaan u marinayaa marka ugu horeeya dadka walaalaha ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa salaamaya qaaradaha adduunka meel kasta أمريكا كندا يوروب أستراليا عالم العربي إيشيا أفريقيا صوماليا بنتلاند قبلنا النوردان وحن وجود بنا يا سلام يسود وين وحن وجود بنا يا وحن كهذا اللي نعنى هل كان أنو تاجنها ودن تاري ودن تاني ودل كني ودين تاني أي وذا دمان تاني وذا جر أين أقبلنا ما أنت دن تاني هذا أنا هنيك أتاجن يقول تاجر كل جين برينا يقول حسابه waan idin la shaqeeyo oo wixii aan ballan qaaday inaan fuliyo igu kaalmeeyo waxaan idin ka codsanayaa waa intaa waxaan la hadlayaa xildhibaanada Puntland oo 66 ah waxaan leeyahay inaad aadan maxamed ciise gaadaale aad doorataan macnaheedu waxa dooratay qofkii kuugu dhawaa macnaheedu waxa dooratay dalkaaga ammaankiisa in la sugo waxa dooratay dhaqaalahaaga in la sugo waxa dooratay in dalkaaga ka maqnaayo xanuunka kugu hayay la soo celiyo waxa dooratay in maxkamadahaaga iyo ammaanka iyo cadaaladii lagu dhiso waxa dooratay inaad si xornimo ah dalkaaga ku joogto waxa dooratay in tahriibka laga joojiyo waxa dooratay lacagaha cirmarka ah oo been abuurka ah in la mamnuuco oo la joojiyo waxa dooratay sicir bararka in laga joojiyo waxa dooratay ceelasha in loo qodo dadka ma arkaysa haraadan waxa dooratay in maxaan ku iraahdaa xoolaheena calafkooda iyo dawadeeda laga shaqeeyo dhaqaalaheena boqolkiiba 80 baadiyo ku xiran yahay dadkeena baadiyaha in la daryeelo waxa dooratay dantaadii shakhsiga ahay malihi dadka kale wax qaban maayaan waana soo dhaweynaya murashaxiinta oo dhan laakiin waxay ila tahay dadku kala duwan taariikhdana ku kala duwan muuqaalka ku kala duwan go'aanka ku kala duwan hadalkayga markaad maqasho hadal qalbi ka soo baxay weeye qalbigaagana galaya adaan marxaanti ka dhiganaya xildhibaanka baanto imaqlayo marxaanti ilaahay adaan ka dhiganaya ma yahay hadalkayga wax qalbigaaga galaya mise waxaad u lanaysaa dadka imaqashi imadadaali show off miyaan ah haddaan ahay imaqashi imadadaali adeer sawdkaaga haysiinin laakiin haddaa ogtahay taariikhdaydana ku taqaanin maantana codkaygu uu ku galay haddii adaa lagaa rabaa meel kale inaadan u leexin dooro dadkaaga iyo dalkaaga iyo diintaada iyo dantaada qofkii wuxuu qaban lahaa yaa weeye waa aadan gaadaale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu kusoo koobaynaa waraysigaasi gaarka oo aanu uga hadlaynay oo marti noogu ahaa aadan ciise gaadaale samafalaha Soomaaliyeed ahna musharax u taagan jagada madaxtinimada Puntland ee 2019 dabcan aad wax badan aad ka ogaateen waraysigan uu insiiyay iyo arrimo fara badan oo nagu hadalnay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waraysigan aad baan u shukriyaa idaacadiina iyo dhalinyarada ka shaqeynaysa iyo dhammaan hawlaha aad haysaan aad baan idinku taageersanahay aad baad mahadsantahay